muuqaalkan miyaad duubi lahay maya muuqaalkan ma duubi lahayn sabab aa u duubeynin ma rabi inay dadka arkaan wixii ani markaas iga dhiman. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta youtube channelka aad daawanaysaan waa caraalaheena fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe like share comment waa dhankaaga adiga ayaan kuu soo wakiishay muuqaalkan daawanaya. waxaan rabaa inaan muuqaalkan kaga hadlo wax intiina badan aad ka wada hadasheen oo ah sadaqada. sadaqada sida aynu ognahnay waxaan nahnay dad muslim ah islaam ah diin sharaf leh haysta sadaqadana ay wax weyn agteena ka tahay qiimo weyn agteena ay ka tahay qiimo weyn agteena ay ka leedahay waxa aad sadaqaysatana bari ay ku anfici doonaan nuur fara badan aad ka helaysa. laakiin waayihii ugu dambeeyey waxaa la arkay dad sadaqadii u fahmay qaab qaldan. waxaad arkaysaa qofku dhahay maanta niyo waxaan rabaa inaan sadaqo baxsado ama waxyaabo muuqaal inaan soo sameeyo aniga oo dad wax siinayo waxaan rabaa inaad iga duubto ama aad muuqaal iga soo sameyso si ay dadka u daawadaan dadka aniga igu xiran. ma ahan taas sadaqo ee waa wax adiga dantaada ah adiga aad samaysanayso. sadaqada waxaa la sheegay in xitaa gacanta midigta aad ku bixinayso aad ka qariso gacantaada bidix. haddii aad dhahdo ka waran anigana waxaan rabaa muuqaal in laga soo duubo si aan u shaaciyo sadaqada aan baxsanayo waxa aad baxsanayso allah dartiis ayaad u baxsanaysaa. dad badan oo social media caanka ah waxay ku sababeeyeen in ayaga aysan raalli ka ahayn laakiin dadka u soo dira lacagaha ama waxyaabaha sadaqaadka ay bixinayaan ay xujo kaga dhigaan in muuqaalo ay soo duubaan. haddii aad wax baxsanaysid tusaale haddii aad tahay qof magac leh wixii la rabana in lagu siiyo aad dad kaleeto u gudbisid maadaama bulshada aad ka magac dheer tahay wixii adiga aad bixinaysid haddii lagugu xujeeyo inaad muuqaal ka soo duubtid waxaan inay yihiin sadaqo u sheeg qofka marka horeeto wanaaga asiga wuxuu sameynayaa waa wax wanaaga adiga wuxuu kuu soo wakiisho waa wanaag adiga markaaga ayay ku taagan tahay u sheeg waxa wanaaga ah sadaqadana inay qurux badan tahay ama ku qiimo leedahay in la qariyo. wixii aad baxsanaysid wax waliba awoodaada ha ahaado. haddii aad dhahdo maanta $10,000 ayaan rabaa inaan sadaqa ahaan u bixiyo waxaan rabaa inaan wakiisho 10 qof oo baraha bulshada caanka ah oo magac ku leh ma ahan taas macnaheeda in adiga wakiilo ma xumo qofkii ha gudbiyo dad kaleeto oo masaakiina ama dadkii u qalmi waqtigaasi ha lagu sadaqeeyo laakiin ma ahan adigana inaad xujo kaga dhigto inaad dhahdo muuqaal ha laga soo duubo. dadka qaar ayaga ayaa ku sababeeya laakiin waxa adiga aad tahay oo keliya qofka u sheeg kuna dheh waxaan aad baxsanayso dar alla ayaad u baxsanaysaa. haddii qof kale uu kaa cuno iyo haddii uusan kaa cuninba ogow rabbigaaga xaggiisa ayay kuu jiraan. waad niyeysatay shaqo wanaagsan ayaad qabatay si qofkan. dadka qaar waxaa arkaysaa muuqaalada marka laga duubaayo xitaa ay dareemayaan wejigooda ayaad ka dheehan kartaa. maanta ma rabi lahayd adiga hooyadaada haddii maanta la dhaho sadaqa ayaan siinayaa ama qof waliba ayaa wax u baahan adduunkaa la joogo qof maanta dhammaystiran ma jiro. haddii maanta la dhaho muuqaal ayaa laga duubayaa ma ogolaan lahayd in hooyada ama walaasha oo ubad haysata waddadana dhinac ka fadhisa muuqaal inta laga duubo sadaqana la siinayo adiga ma jeclaan lahayd? waa maya. maxaad adigana u samaynaysaa? waxay ku qurux badnaan lahayd in la qariyo inaad sheegtidna wax muhiima kuma ahan. waxaan duubo qofka waxa la siinayo haddii aad wax soo baxsatay ceeb ma lahan qofka la siinayo asiga wejigiisa ka fiiri. haddii uu waqti xaadirkaas xitaa faraxsan yahay sida muuqaaladan aad kaga jeedaan muuqaalkan waa lii caato sidoo kale ليه عاتي برنامج أسوداي يا ودعي
islaamka u furaw siinaa meel kasta walxa u dhiiyaa waa duceysan yahay in kale ilaahay khayr hanisiyo wax ku soo tare igaarkay waa duceysan yahay Soomaal dhan walxa u qeybnaa muuqaalkan yarkan asagana waa tiktoker magaciisa waa garanaya laakiin hadda hayo لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا yarkan waa tiktoker asigana sidaan aad kaga jeedaan dadka wajiyadooda haddii ay hadda farxad ka muuqato please sadaqada yaan laga dhigin wax qofka lagu baxdilayo ama qofka markii aad qof tabaaleysan oo kaleeto u soo gudbinaysid bulshada inaad u sheegtid ama muuqaal aad ka samaysid qofkaas xaaladiisa waqtigaas la joogo una baahan yahay kaalmo ah sadaqo qof la baxaayo tusaale ama hay'ad caalami ha ahaato ama qof shakhsi ah oo sadaqo la baxaayo waxay doonaan ba ha ahaadaan qofkaas haddii aad bulshada u soo gudbisid oo muuqaal aad kasoo samaysid adiga oo markaas dareenkiisa fiirinayo wax ceeba ma laha laakiin inaad dhahdo qofkii waa kana qofkan waa qof u baahan meeshaas ayaa kusoo aragnay haddana waxaan rabnaa inaan sadaqadan ama intaana loogu talagalay aan gaarsiino waxaa ka qurux badan inay sadaqada wax xadfan ku ahaato ama wax qarsoodi ah rabbi ayaad u baxsanaysaa qof bini aadan waxba kaama gelin qofkan bini aadanka haddii uu arkay iyo haddii uusan arkin waxba kaama gelin mideeda kaleeto dadka waa aragteen commentiyada inta badan soo falceliya waxay sheegaan in qofka sadaqada iyo kaamirada la kala fogeeyo ma ahan wax la duwaayo riwaayad ama wax iska fani ah oo bulshada markaasi loogu maadeynayo kaleeto ma ahan laakiin waa wax ilaahay dartiisa u baxsanaysid rabbigaaga xagiisa ay ku jiraan xitaa haddii ay tusto ama qof kaleeto aad tusto macnaheeda ma ka dhigno in markaasi qofkaasi uu kugu abaalmarinayo haddii uu qof shakhsi kugu abaalmarin lahaa waxaad qasab ahaan lahayd inaad qofkaas markaas tusto laakiin rabbigaaga ayaa kugu abaalmarin doono haddii aad tusto iyo haddii aadan tusinba dadka rabbi mar walba wuu ku jeedaa asiga ayaanu ku abaalmarin doona tusaale dadka social media maanta magaca ku leh ama dadka wax duubo xitaa qof kaleeta aniga oo soo qaadanin ani ahaanteeda markii aan ka soo qaado muhiim maanta muuqaalkan hadda aan duuwaayo haddii ka waran tusaale tinteeda ama qaab kale ay ahaan lahayd ama wejigayga si kaleeta ahaan lahaa ama garaafo intayga aan lahayd ama dhar jajaban ama dhar jeexan aan waxaan lahaa muuqaalkan ma duubi lahay maya muuqaalkan ma duubi lahayn sabab aan duubeynin ma rabi inay dadka arkaan wixii ani markaas iga dhiman qofkaas markaas haddii uu yahay qof tabaaleysan ee walaalkaaga ah ee baahan ama waxba aanan haysanin xitaa haddii muuqaalkaasi dhar uusan xirneen ma ahan inaad dhahdo adigana waan ku duubayaa ama dad ayaa soo codsaday dadka qaarkii waxaa arkaysaa dumarka ayaa u badan raggana way sameeyaan dadka qaarkii waxaa arkaysaa dumarka iyo ragga marka kaamirada lala soo dhexgalo in ay sidaas oo kaleeto marada xeeyaan ragga qaarna madaxa hoos aadiyaan raalli kama ahan maxaad duubaysaa haddii aad wax ku sadaqaysanayso waxaa ku sadaqayso sadaqada ma ahan muhiim inaad duubto qofkaas ama muuqaalkiisa aad bannaanka soo dhigtid inuusan raalli ka ahayn waa ujeedaa kaamirada uu ka xishoonayo ama bahdil uu arkaayo beri ayuu qofkan wax qabsan karaa beri ayuu ilaahay wax siin karaa wixii adiga maanta ilaahay ku siiyey kaa soo qaaday qofkan lala soo jeclaaday la siiyey ma ahan macnaheeda inaad adigana ku digatid
waxaan dhihi lahaa dadka social mediaha magaca ku leh ama dadka wax sadaqaysta ee soo dirsada sadaqaadka allah dartiis ayaa wax u baxsanaysa. iska dhaaf muuqaal lagaaga soo duubo inaad aragto qofka haddii aadan aaminaynin aadan joogin meel aad wax ku sadaqaysato. waalidka maanta qof walba waalidkiisa ayaa joogo, ehelkiisa ayaa joogo. haddaadan ehelka iyo waalidka xitaa aadan aaminaynin, dad ehel oo baahan agoon ah ayaa jira, ku sadaqayso si ayaga waxa adiga ahaysa ma ahan qof inaad ku dulmisad kamarada. muuqaalkan waxaan ka gudbi doonaa intaas. mahadsan tahay. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله